Bismillah. Asalaamu calaykum. Maalin wanaagsan, habeen wanaagsan hadba ka aadan tahay. Isku soo noqod wanaagsan mar kale. Waxaan hore usoo sameynay program yar oo C++ ahaa, kaasi oo tusaale camal marka aad soo gelisid 1 2 3 kuusoo daawacayay 3 2 1 3 2 1. Insha Allah caawan waxaan sameyn doonaa program kale oo C++ ah, laakiin kii hore a little bit wax yar ka yara duwan, in badan aad uga agdhow. Programkani marka aad soo gelisid tusaale camal 1 2 3 wuxuu kuusoo daawaci doonaa 6. I hope inaan fahansanay 6 halka ay ka imaatay, oo waa just lambaradaasi oo la isku daray. Programkii hore qofkii si fiican usoo fahmay kanna insha Allah si fiican ayuu u fahmi doonaa, waayo aad iyo aad ayuu u agdhow yahay, wax yar inuu ka duwan yahay. Marka let's get started. Weliba let's make it better even. Waxaaba sameyneynaa program yar oo qofka marka uu soo gala la dhihi doono kala dooro lambar 1 si aad lambaradan ama digits aad isugu dirtid, ama lambar 2 si aad u kala gedisid. Marka waan safgareyneynaa, waxaan u bixineynaa maybe reverse sum is better, oo reverse iyo sum ayaan kasoo kala gaabiyey extension-kaaga 11.cbb. Waxaan soo qabsanay horta option oo qofku wax ku kala dooranayo, lambar oo marka hore 0 aan ku shubnay, reverse number oo ayada lambarka la kala gediyo lagu keydin doono, iyo sum oo wadarta lambarka la soo geliyay lagu keydin doono. Marka programka uu soo kacno, qofku waxaa dhihi doonaa dooro 1 si aad u kala rogtid ama reverse ugu sameysid lambarka, ama dooro lambar 2 si aad isugu dirtid lambarka oo yacni sum aad u sameysid. Kadibna option ayuu soo geli doonaa. Marka qofka wax uu kala dooranayo, waxaan hore usoo aragnay in la isticmaalo if else. wax ka duwan aan isku dayna caawa, maybe switch is better. waan jeclahay aniga switch horta shakhsiyadeyda. Switchka sida aan ognahay wuxuu isticmaalaa case, break iyo default. Maxay kala yihiin saddexdaas eri? Case waa wax aad ku dooranaysid. Case 1 iyo case 2 ayaan haysanaa aniga, sax? oo case-ka koowaad qofka haddii uu doorto lambarka waa la kala rogi doonaa, haddii case-ka labaad uu doortona lambarkii uu soo geliyey ayaa la isku dari doonaa. waxaa kaloo meesha jirta break. haddii tusaale camal qofka uu case 1 uu doorto break aanan dhihin, case 2 iyo wax ka dambeeya dhan waa la daawaci doonaa. laakiin break marka aan dhahnay case 1 oo qofka doortay, case 1 kiisa ayuu ku ekaa doonaa. Break yacni marka waxaa lagu kala jiraa caseska ayaa lagu kala jiraa, haddii kale waa iska socon doonaan oo marka midka aad rabtay la gala, kuwii kaloo kasii dambeeyey dhanna waa la soo daawaci doonaa. waxaa kaloo jirta if else marka aan joognay, haddii tusaale camal qofka 1 iyo 2 wax ka baxsan uu doorto, waxaan dhihi jirnay marka lambarkii aan rabnay lambarka weyn uu doorto ls ayaan dhihi jirnay, oo lambarka aad doortay waa qalad iyo wax saas ayaan dhihi jirnay programkii AVC, oo insha Allah taxnihiisina dib aan mar u bilaawi doono. inta waxaa la isticmaalaa markaan default, oo tusaale camal qofka haddii 1 uu doorto, case 1 uu doorto, haddii case 2 uu doorto, haddii wax ka baxsan uu doortona default ayaan ku qaban doonaa. waxaan haysanaa marka case 1, let's break it. case 2 samee kalantaasna waa muhiim case marka la isticmaalayo. let's break it ayadana, iyo case default oo halkaas samee kalan iyo case default. case default warkeeda waa cad yahay ayadana, oo qofka haddii wax lambaradii aan rabnay wax ka baxsan u doorto, waxaan dhihi doonaa sidii programkii AVC aan kusoo arkaynay, fadlan dooro number sax ah. programka hadda waxaan rabnaa lambar 1 qofka marka uu doorto in lambarka reverse lagu sameeyo. qoraalka waan soo yar boobsinayna, isku soo noqonayna. reverse numberka hore ayaan usoo sameynay oo aan usoo sharaxnay si detail ah, waqti badan kuma dhumin doono, oo haddii aad u baahan tahay description-ka waad ka heli kartaa, halkaas kore oo pop-up-kan wuu kasoo bixi doonaa.
marka halkaas ayaad reference ugu laaban kartaa. Markaan waxaan u baahannahay loop oo yacni qofkii lambarka uu soo geliyay inaan ku wareegano si aan u kala gedino sidii hore aan usoo aragnay reference numberka loopiska aan naqaanan waa 3 waa while loop, do while loop iyo for loop. Hore waxaan usoo isticmaalnay marka lambarka aan kala gedinaynay while loop marka taamkan for loop ayaan isticmaalaynaa. For loop waxay qaadataa 3 qiimo waa initialize, condition iyo increment ama decrement meesha uu lambarkaada ka bilaabanayo shuruudda ku xiran iyo haddii increment ama decrement ku dhacayo waxaa waajib ah ugu yaraan 2 xabo inaad siisid laakiin lagama yeeli doono wax 2 xabo ka yar. Anaga waxaan rabnaa markaan trigger inaan isticmaalno oo banaankan 1 xabo aan ka siino marka aan gudaheeda galnana incrementkii aan gudaha ka dhex siino. Trigger ayaan sameynaynaa oo qaybta koowaad anaga muhiim nooma aha hadda waa userkii lambarka uu soo geliyay ayaa laga bilaabi doonaa ama waa caadiyan default 0 ayaa laga bilaabi doonaa hadba midda ay noqotoba aniga muhiim nooma ah marka semicolon oo kale ayaan ku qabanaynaa oo taasi triggers ayaan ku isticmaalaynaa. Marka next waxaan dhahaynaa lambarka ha socdo ilaa iyo uu 0 ka noqonayo oo yacni lambarkan hadduusan 0 ahayn loopkani wuu socon doonaa marka kaliya uu 0 noqdo ayuu istaagi doonaa. So reference numberka hore ayaan usoo sharaxnay saan hore u sheegnay waqti kale ma sii gelin doono descriptionka aad ka heli kartaa haddaad u baahan tahay laakiin meesha waxaa ku jira formula yar oo short form ah isagan insha allah kiiska xiga ayaan ugu tagi doonaa oo meesha ayaan ku sharxaynaa. Marka kan hadda waan ka dhammaanay just waan daawacaynaa kaliya marka aad daawacaysid waxaa muhiim ah inaad loop aad ka dhex baxdid haddii kale loop aad ku jirtid mar walba oo loop uu lagu laabto iyadana waa la daawaci doonaa oo saacama haddii 5 jeer loop uu dhaca 5 jeer ayaa la daawaci doonaa marka banaanka loopka ka geey. Kiiska koowaad intaas ayaan ugu baxnay midka labaad ayaan u gelaynaa. Kiiskaasina qofka waxaa laga dalban doonaa mar kale inuu soo geliyo lambarka la isku darayo ama sumka lagu sameynayo wadarta guud lagu sameynayo. So qofka marka lambarka uu soo geliyay sidoo kale waxaan rabnaa inaan isticmaalno for loopki. So for loopka waxaan hore u sheegnay inay 3 qiimo ay qaadanayso laakiin 2 waajib ay tahay. So taamkani sidii hore ka duwan oo markii hore waxaan sameynay just lambarka userka uu soo geliyay ha ka bilaawdo ayay ka dhigan tahay triggers isaga ayaan qabsan doono kadibna lambarka ilaa iyo 0 ka noqonayo conditionkeena ahaa decrementiga ay u baahnayna halkan ayuu ka dhacay. taamkani si ka duwan so waxaan dhihinaa qofka lambarka uu soo geliyay ha ka bilaawdo loopkana ha socdo sidii hore si la mid ah ilaa iyo uu 0 ka noqonayo. Waxaan kaloo halkan ku sheegaynaa decrementiga halkan ka dhacay oo number waxaan dhahaynaa wuxuu la mid noqon doonaa lambarkii hore uu jiray oo 10 loo qaybshay. So formulahan gaaban hadaytin aan soo isticmaalay haddana aan isticmaalay muxuu ka dhigan yahay. Formulahan wuxuu ka dhigan yahay lambar ha la mid noqdo lambar oo loo qaybiyay 10. Waxaas dhan inta aad qor lahayd just waa short form num divide 10 equal num divide equal 10 ayaa dhihaysaa oo lambar wixii hore uu jiray 10 loo qaybshay waxaad ku shubtaa lambar. Halkan waxaan u baahannahay sum inaan qiimo ku shubno oo wadarta ah adina waxaan dhahaynaa sum waxaad ku shubtaa wixii lambar hore ugu jiray modulus 10. So tan waa another short form waxay ka dhigan tahay marka sum waxaad ku shubtaa oo wadarta ah wixii hore sum ay u wadatay oo lagu daray number modulus 10. So that's a very long way sax wada dheer waa intaad soo mar lahayd waxaas dhinacaad qor lahayd just intaas ayaa kaaga filin oo waa short formka lambarkaasi dheer. Marka hore semicolon ayaan halkaas ka soo tagnay waan soo saxnay maxaa kaloo naga dhimin programkeena wuu dhamaystiray marka oo sumka ama wadarta ayadana loopka banaankiisa ayaan ka daawacnay. So aan rangarayno marka programkeena 1 ayaan dooranaynaa waxaan filaynaa marka 1 2 3 aan gelino inaan helno 3 2 1 markaas waa noo soo daacay. So marka la soo rangaray kadibna 2 ayaan dooranaynaa kadibna 1 2 3 ayaan gelinaynaa waxaan filaynaa inaan helno 6. Hataas ayaduna qaybtan dambe ayaan wax yar sharxaynaa. So 1 2 3 ayaan u qaadanay qof inuu soo geliyay oo n ayaan ku shubnay number ah iyo s oo aan ka wadno sum aan u qaadanay marka qofka soo qaad inuu 1 2 3 soo geliyay 1 2 3 marka aad 10 u qaybisid hal ayaa halkaas u koray 10
markaad ka jirtid oo 1 oo dabcan waa 23 laba ayaa halkaas u koraysa marka aad ka jirtidna waa 20 dabcan oo 3 ayaa ku soo haraysa 3 markaan 10 u qaybsanin uma qaybsanto point jajab ayaa wax gal doona aniga integer maadaama aan qaadan jajabka dhan waa la iska tuuri doonaa so loopka marka aan gudaha u galno marka lambar 10 loo qaybiyey 12 ay ku soo hartay gudaha marka aan galno ha isdhihin 12 ayaan wadanaa sidii sax 123 ayaan wadanaa 123 marka 10 loo qayb modulaasaan lahayn hadda ayaan soo helnay oo haraaga waa 3 reminderka waxaan dhihinaa markaan sam waxaad ku dartaa 3 صح هذا سام 3 ayaa noogu jirto 0 plus 3 waa ilaan so mar kale ku laabno markaan 12 soo qaybi waqti iskaga duminayna 1 ayaa soo har doona point 2 ayay noqon doontaa oo 2 waa haraaga 1 marka ay u kala qaataan so markaan gudaha aad gashay still number waxaad wadataa markaan dambe 12 ayaad wadataa so 12 marka aad 10 u qaybisid sidii saxda waan iska ognahay waxaa soo har doonto 2 ayaa soo har doonta sax hadda sam waxaan wadanaa marka 5 so marka aad ku laabatay still hadda lambar maxaan wadanaa marka aan banaanka loop ugu soo baxnay lambar waxaan wadanaa 1 sax oo 12 marka aan 1 u qaybinay 1.2 ayaa soo hartay halkaas dhibic ayaan ka wadaa so 1.2 anaga 2 nooma xisaabsan maadaama integer aan wadano 1ka kale ayaa noo xisaabsan oo integer wax jajab ma qaadato float ama double ayaa qaadan kara jajabka so marka loop aad ku soo noqotid waxaa dhihi doonaa hel number 0 miyaa ku jirto may still 1 ayaa ku jirto haddana mar kale ayaa loopka gudaha loo galaa oo waxaan samayn doonaa nam modulaasaan so 1 marka loo qaybiyey 10 maxaa soo haraya 1 ayaa soo haraya sax oo 10 muu kala qaybsanto so waxaan dhihinaa haddana waxaad ku dartaa wixii sam hore ugu jiray 5 ahay plus 1ka hadda haraaga which is equal 6 halkaas ayay ka imaatay waana very simple oo qof walba oo xisaab yaqaan programkan uu fahmi karaa qaybtan insaan hore usoo sheegnay hore ayaan usoo sharaxnay halkaasna kasoo bixi description-kuna waan soo dhigi doonaa halkaas ayaad ka heli doontaa sidoo kale ayaan idinka ilowin programkan isagoo java version ayaan abuuray kaasi ma sharxi doono wax waqti ima gelin doono laakiin just waa idin tusaa waa kana programka isagoo java sida aan ognahay java marka aad keyboardka input kusoo gelinaysid waxaad u baahan tahay inaad scanner soo input garaysatid sidoo kale galaaskaada name classka inaad iska saxdid oo mar walba wax aad isticmaali doontid meelaha gudaha haddii ay noqoto ama haddii programka aad ku raangarayn lahayd programkan waa kii cmd lagu raangaraynaya aan ugu talagalay ma ahan mid nadminis iyo maxay dhahayn meelo kale lagu raangaraynayo so waa sidii oo kale very much oo waa kaasaa optionka waan qabsanay marka hore 0 ayaan iskaga shubnay taas wax kusoo kordhinaysay scannerkan variable oo system in ayaan ka abuuranay lambaradii data waan soo qabsanay userka waan ka dalbanay inuu wax soo doorto kadibna inuu soo doorto 1 iyo 2 inuu soo geliyo sida aad arkaysa inta waxaan isticmaalnay if iyo ls waa sim ls tinwatasa iyo sorry if ls ayaan ka wadaa ls ugu dambeysay tinwatasa oo qofka lambar sax dooro la dhihi doono so that's it sidoo kale waad samayn kartaa inaad qofka aad ugu dirtid mar walba uu lambarka doorto oo laisku daro ama la kala rogo in la dhahaa qofka mar rabtaa mar labaad inaad samaysid oo loop sidaas ugu soo noqdo taasi inta muuqaalka uu gaari doono ayaan idin dayi doonaa so that's it muuqaalkeenii caawa intaas ayaan kusoo gabagabeynayna waxaan rajeynaa ugu yaraan inaad wax xubna aad ka fahantay haddii aad ka heshay ha ilowin inaad asxaabtaada lasii wadaagtid inta aan markale dib ugu kulmi doonana wassalaamu calaykum keep coding